halkaaba maaragtay diinta uga baxay anigoo si jooga marka ka soo tagtay islaamka 2016 ahayd oo midi runtii iga saaray markii midida saacabaar iskula dhaganeen markii dambe waxaa dhacday in mididii ay faniintay. waxaad kala socotaa daawada dhagarqabaha ku nool Malaysia isku dayay inuu kufsado gabadha YouTuberada ah ee lagu magacaabo Ayanita inuu diinta islaamka isaga baxay una noqday Christian muuqaal cadeyn ah oo quseeya isagoo qiranaya iyo xogta isku dayga kufsiga aan warbixintan ku soo qaadan doonaa daawade muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsan daawade aan ugu galno daawadayaal warbixinteenan muddooyinkan dambe waxa baraha bulshada haysata dhagarqabaha kufsiga u geysan rabay gabadhan yarta ah YouTuberada ah ee lagu magacaabo Ayanita isla mar ahaantana ay ka badbaaday kufsiga iyo sharaf dilka ula damacsanaa dhagarqabahan balse gabadhan yar uu soo gaaray dhaawac xagga gacanta ah oo uu geystay dhagarqabaha balse muuqaal hadda soo baxay ayaa cadeen u noqday in wiilka uu 2016 uu isaga baxay diinta islaamka isla mar ahaantana uu noqday Christian xasbunallah balila daawo muuqaalka uu ku sheegayo inuu diinta isaga baxay. welcome Ruqiya Maxamed Awaale iyo Leila iyo dadka gadaal ka soo kala all of you I will say welcome all of you in the mighty name of Jesus. So dhawaada marka sidii aan hore ku weydiiyay The Joy waxaan rabnaa inaad noo sheegtid magacaaga meesha ku dhalatay iyo yaraantaadii wax ku saabsan and feel free inta maaragta waqti qaado nala qaybso adoo mahadsan. aad baa mahadsan tahay magacayga cusub waa The Joy xal ibtay Abdullahi aan ku dhashay Muqdisho maaragtay ku dhashay Muqdisho صح quraankii meesha ku soo bartay صح halkaaba diinta uga baxay anigoo si jooga marka diinta ka baxay kadib waxaan noqday inlaabe marka صح صح marka صح وارن وقصة أد ونكسن ولا لها قدام كسر قال دمانتي شير قرية أو لايك يكومنت سمية The Joy مركا دلتي كل دلتي سوماليا كل سوماليا أنا سأقولها وده مسلم أهوا مقدشة كل دلتي مقدشة كورتي مركا دكس قرآن والوجي سماها مركا قرآن كي سيف عن مبرتي محاهت حسوس تاع قدام مركا لو في فيلم الوداد دمي أحيان دين الإسلام مال وسو كوري محاهت أديك محاهت دريم جرتي iyo maaragtay muslimada quraanki inta wax ka soo gaartay wax badan ka barat leedahay wiil dhalinyarana waa tahay marka ka soo tagtay islaamka 2016 ahayd markii maaragtay leeyahay ogaanay sida leeyahay ogaadayna maaragtay diintu waa ka tagay waa arin argagaxeeda iyo yaabkeeda wadata aan ka soo gulubna muuqaalka cadeynta uu ahaa inuu isaga baxay diinta islaamka uuna noqday dhagarqabahan Christian balse waa aqli xumo iyo cawaaqib xumo arinka Ayanita oo marar kala duwan ka hadashay dhibaatada loo geystay ayaa sheegtay in aysan wali helin wax cadaalad ah aysan garab istaag fiican ka helin Soomaalida ku nool dalka Malaysia marka laga reebo dad farakuturis ah oo ay ku jiraan YouTuber farakuturis ah ku nool dalkaasi walow dhamaantood aysan ka wada hadleen balila daawo iyadoo ka hadlaysa dhibaatada loo geystay door waa dareemi karaa xanuunka ay leedahay dhibaatada marka qof dhibaato loo geysanayo dhibkay leedahay anaa soo maray xataa anoo soo marin xataa waan ogahay ma rabo gabar in la dhibaateeyo ma rabo gabar in lagu xadgudbo dadka badanaa waxay dhahayeen dhaawacaagii iyo siduu ku gaaray iyo waxa mar walba soo xasuustay waxaas noo sheeg badanaa ani waxaa ka shalaaya mar walbo mana ka shalaayiye waa wax Ilaahay qoray mar walbo aan cil iga qabtaa ramadaankii dhaafay kaliya sababtoo ah ramadaan toddoba maraayay markii ay 7 maalmood kadib baa waxa isku dayay inaan soomo maalintii koowaad aan soomay maalintii labaad ayadoo waliba dhakhtarada ii diiday oo dhaaday ma soomi kartid adaaba dhiiga u baahan tahay laakiin dhiig in hadii aad u baahato dib ugu baahato waa lagu shubaa laakiin hadda adaaba yaabana soomin nafteedu way siin weysay bil ramadaan in aan cuno wallahi marka horena dadka waxay u weydiinayeen dhakhtartu way ogyihiin qof dhaawac inuusan soomin laakiin waxay ogyihiin soonka meesha aan iga taagan yahay 7 maalmood marka daawooyinkii waxa isticmaalay maalintii kale waa soomay alxamdulillah sanadooda igu dhamaad maalintii labaad waa soomay
sariirta dhan aan arki waayey qofka horteeda taagan xataa waa arki waayey tabardaro darteeda laakiin alxamdulilah inkastoo ramadaankii dhaafay maaha miyihi qof ramadaan ku dhibtoodo oo ramadaanka insha allah waa wax aan gudi doono laakiin waxaa ciid iga ahaayaa bisha ramadaan oo aan sugayay hal sano oo aan ku faraxsanaa oo aan isdhahay ilaahayow nabad kuugu dhammeey ka faa'iideysto inkastoo aan ugu faa'iideystay quraan akhris iyo inaan salaada dukado salaada aan badiyo inkastoo salaada xataa yani dhib igu ahayd laakiin waa lama huraan waa lagama maarmaan haddii aad xataa sakaraadta sariirta jiifta uga leedahay haddii aad fadhi ku dukaa lagu dhahay haddii aad istaag ku duka weyso haddii aad ku duka weysana jiif ku duko marka salaada jiif la gaarsiiyey macnaha gacan dhaawaca ma looga tegi karo waana sax mar walba oo aan soo xasuusto ama waxa soo xasuustana ama dhibkii soo gaaray aan soo xasuustana si ilaahay qalbigeyga ugu masaxo laba ragco sunnah iska dukanaya si ilaahay iga tirtiro habeenkii oo kale markay ku soo qarbo ama mididii wixii dhiigii ku soo qarbo horta mar walba anaga waxa ku seexanaa badanaa reer Malaysia dhaqankaas waa ku arkay ani ebel hore u haystay laakiin waa ku arkay quraan baa lagu seexdaa oo quraan ashidana ku seexana markay wixii ugu soo laalaabteen habeenkii aan ka hurdi karin madax xanuun kidib waxaa sameeyay ruqiya al-sharciya habeenkii shidan jiray alxamdulillah ilaa hadda waa shitaa ku mahadsanid daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawade